حسبك ودني مقالة كيسلو ودك كسك أبوري يو أرجع حياة قرحية يبقى أرمها كشقيني وين فربنا وحا كتير كنا كيسرتون وحا كتير كنا كبليس وحا كم إذا بالكي رجوا فربنا شرنك السردونكو وفيصل عبد الجهاد وأنا كي حلك لقى قاضي فيصل أنا جهاد عبد الجهاد رقم بيبوها أنا كي شكلنا بكتب بيبوها شرنك بليس كنا ومحمد آل سقر الدبقة يكسر معطينا ساين تليا فيصل محمد آل سقر الدبقة ويدين يمي أو لعقتها يقول لعقاتها وأرجع حسوا شيكتها يا روح عطينا أنا الحساب تمايا ويا بالشدة ما وعد ذيك رأسها يودي لما تيارتاس وحا هذا قعنتا لغو هيا عيدن حمر كيني ومجي عيسى iyo tiradiisa iyo codkiisa iyo baaritaankiisa inay Soomaaliland argagixiso ka abuuraan hadda ku yimi oo ciidamadeena booliiska uu qabtay waxaan halkan ka sheegayaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro inuu ciidanka halka yimi qofka xidhiidhka qale ee lacagaha u diray uu ka mid yahay anigoo shaqadayda hore ee militarigu ahaan jirtay qaybta militariga la yiraahdo intelligence-ka wardoonka oo sida wararka loo maamulo garanayo daadana maanta jooga xilkana haya anaan qof jiran ahaanaynin dambiga ka soo baxana aniga qaadaya kubanka bishii August sanadii 2022 ayuu wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed warbaahinta u sheegay inuu gacanta ku soo dhigay ciidamo Muqdisho ka yimi oo argagixiso oo xidhiidh la leh musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro saddex dhalinyaro oo ka soo jeeda beesha Garxajis ayay xukuumaddu isku dayday inay ka dhigto ciidamada argagixisada ee musharax Ciro lala xidhiidhinayay dhalinyaradaasi oo diiday lacaga loo soo bandhigay si ay u sheegtaan argagixiso iyo inay xidhiidh la leeyihiin musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro maxkamadda ayaa ku weyday eedihii loo soo jeediyay iyadoo markii dambana kiis looga dhigay qarandumisnimo gaarkana waxa loo geliyay 5 sano oo xukun xaaraana Ali Ahmed Xirsi oo kamid ah saddexdaasi maxbuus ee sharci darrada ku xidhan ayaa jeelka weyn ee Hargeysa khadka telefoonka igala soo xidhiidhay sheekadan ayaana dhex martay aniga iyo Cali وليو سيدنا وحده بسم الله الرحمن الرحيم تو ما سنتي بعد warbaahintuba iyo ina sida waxu dhacay waxaan haydin niman iska socoto oo xaafadooda soo boqdo fasax ku yiri way aanu ku nimaadnay garow waanu ka soo degnay waxaanu ka soo raacnay gawaadhida bixinta ma garanaysaa basaskii kantaroolka haleeyana lagu qabtay way baskii waxa la geeyay CID-da way baskii CID-da markii la geeyay dadkii waa la fatashay way فتش ربطها كده عايز واي ويحي سمرون هوا ولا سيداي واي ويحي الساعة كده هنا ولا سيداي هذا ممكن حكس وحنا كنا شنقف إذا المير تشكا يعني أفرتين واي وأي كم يجين بشار عبد القادر يو مختار على عثمان يو مصطفى جامع عثمان يو نتا كلا يدرون بيحد نسيتم كرنسا يا أديكو عليا ayaanigu caliya shanta yadaas marka waxa noqonay G36 Garxajis way tabagalay baan la kulanay ina cali xige way markaas ay lagu dabaqeen dadkiis u diyaarsano oo ay la damaaganayeen xisbiga wadaniyo siyaasiyiintiisa way qorshe u degsanaan baan la soo kulanay maanta soo ugu talagalay marka horeba way كبعدي سيدي بينك كان كهلا واي وحو دادك وش يقولوا تنجسي هاي ورقو هبو ومدة وش يقولوا واي عدين تدروا هركينيو واي عدين تيوحي بمركي هاي صورتك الويدي xukuumadda iyo wasiirkii hadlayba waxay go'aansadeen in ay anaga dhaqaalahaan oo isticmaalaan ay dhahdaan war lacagto waxa tirada wixii wasiirku sheegay waa run way anaguna taawanu ka diidnay
maadaama wasiirku sheegay inuu argagixiso gacanta ay ku hayaan ma waxa laydigu yiri lacag qaato oo argagixiso ahaan waxa tiraa argagixisan oo ahayn xisbiga wadani ka tirsan xisbiga wadani waxa magaalada keensado wadanka qaska abuuriyay iyo argagixiyaha qaraxiyo way ma garatay kuma idigu yiri lacag qaata qofka idigu yiri ma nala wadaagi kartaa way badan xukuumadda oo dhan bay ahayd shakhsiyaad bal nagala wadaag ya shakhsiyaad nagala wadaag nimanka arrimaha ka shaqeynaya way fara badnaayeen waxaa ku jira jananka sirdoonka waxaa ku jira jananka blaiska waxaa ka mid ah bahalkii rag ugu fara badnaa jananka sirdoonku waa Faysal Cabdigahaad waa ninkii xilka laga qaaday Faysal Cabdigahaad ka mid buu ahaa ninkii shaqada ka dambeeyay buu ahaa jananka blaiskuna waa Maxamed Aadan Saqale dabagale exactly ma cadaynaysaa in taliya Faysal Maxamed Aadan Saqale dabagale uu idin yimi oo lacagta idigu lacag qaata oo argagixiso sheegta tiyaanu cadaynaa in la xisaabtamaya waya bulshada ma cadayn karaysaa oo deedhan ma taayartaas bulshada waxba ka qarsoonba wasiirku soo kaliya intelligence baan oo cadeynteeda la horkeenaya maalintii la xukumayna annagu qura maxkamadda lagu xukumayba way markii halka marayso cid kale lama keenin cid kale maxkamadda waa xidhnaydba soo dhameydba way kadib maxaa dhacay markii la idigu yiri lacag qaata oo magaca sheegta waanu diidnay haye markaanu diidnay waxaana loo sameeyey xukun laba qodob oo midna 3 tuul la yiraahdo midna 2 tuul la yiraahdo way oo qarandumis iqlaab fashilmaya way ma garatay way haddana eedii markii la dhageystay cadeynteedii waana lagu waayay wixiina lagu eedeynayay way maadaama waxba aanan sidan ay caddahay inaanu ka tirsanaan ciidamada federaalka Soomaaliya taana anagu aanu qoraal ka nahay way ma garatay way cadeymo kale markii la waayay iyo markhaatiyo waxaan lagu xukumay qodob la xiriira qodobkiina lagu eedeynay hadii lagu waayay mid la xiriira oo 5 sano baa naloo dhiibay oo maxaya oo qodobkii qodob la xiriira baa ma garanaysaa laakiin waa 2 tuwankii oo markaa qarandumisnimo oo qarandumisatay way afartii niba afartay ma shantaydiiba mid baa la sii daayay laba waa maqan waa Liibaan Xuseen Al-Cadaala iyo Jaamac Gaabush Liibaan Al-Cadaala waa wariyaha ninka social media barnaamijyada wax ku qoran iyo Jaamac Gaabush famil Cabdiraxmaan Raah way ma garatay way arrinkaasi sidaas u dhacay imsaal idinku xukumay markaa 5 sano 5 sano lagu xukumay imika waxaan xoranahay 17 bilood way nasiib darrada jirta xisbigii wadaniga lagu eedeeyay mar hadii cadeynihii lagu waayay xaq wuxuu lahaa inuu cadeynihii horkana soo maaha taa wuxuu uga gaabsanayaa anigu wali ma garanayo way ma fahantay way marka cod dheer iyo cod gaaban waxaad ku gaarsiisaa bulshada reer Soomaaliland cadaalad darrada iyo dulmiga meesha ka jira Soomaaliland gudaheeda inuu xarkaha goostay way wasiirkana waxaan ku furayaa rusagna ma ku sheegayaa haddii uu intelligence ahaa oo uu qabtay niman garxad soo qaranka duminaya muxuu u qaban waayay kuwa dhibaato soo deynay garaadada waddanka qayb haystamika way taas waxay ku cadeynaysaa in diiradda dawladdu ay hayso reer qura way ma fahantay way heerkiina aanu waxba ogeyn badii baadinaynba way caliyow imaka 17 bilood baad xidhan tihiin ma jiraan tacadiyo kale oo la idin geystay may wax tacadiin aad ma jiraan ma fahantay way xorriyadiinu baa idiga maqan xorriyadiinu baa naga maqan waxa ku maqan xaq darro waliba saayida inaad roon la soo koobi karande way in muwaadino waddankiisa ka yimi askari xamar ka aado xamar weyn kala go'an Soomaaliya out of coverage ba dudana way ka baxsan tahay
ده أنا مواد كريم سمال أنا مريك عسكري كهاي ما تسكو حقوق وندنا هاي واي ما قرأت واي مركا ركاسني وسدا بصر كحوم بودا هاي وانا كحونا هاي dadkana gaarsiin aad waliba waxaan ku ninka ku sheegayo toosu gaarsiin waxa taa waxaad uga gaabsanaysaa laakiin iska hadaa qaabin boo cadeyn bal lagu hano waxaad uga aamusanimo kan kugu xiran yihiin noo sheegnade way aad baad u mahadsan tahay caliyow imaka imisaad ku xirantiin saddex baad ku xirantiin saafar saddex nin baa imka xiriirta naga maqoto kiiska xirantii maxaabiistu way fara badan tahay dulmiga lagu haystaa laakiin saddexdan boorta imika isku kiisa iyo liibaan iyo ninka ina gaabusho labadaas maqnay ku xukumayeen way aad iyo aad baad u mahadsan tahay cali bal warbixintaada iyo xogtaadana bulshada waa gaarsiin doonaa intaan markaa aan gaarsiin karayno aad iyo aad baad mahadsan tahay cali